السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أدار فرحسنا هاي إن انكسر قيب قالوا برنامج كان عافماد هذا خاطير نورث أمريكا كيفي سونا أبابرين وإنه كينين وحدونا يا إن أدو مهضبة ونبو قاديو بخاطير الصحاء اسكوب ورصدي أماكم كل مي والله قرن كروه inaad dhulka Mareykanka oo aan dawlad scholarship ka bixinayn aad dhakhtarnimo ka qaadato oo takhasus ku sameeyay hawsha ay leedahay iyo qofka ka bixi kara rag iyo dumar ba inuu yahay qof aad iyo aad qof ahaan u tayo wanaagsan yool leh adkaysi leh wuxuu u socdo garanaya inuu adduunka wuxuu tarana ku talagalay ayuu hawsha ka bixi kara oo la tartami kara kariimka ama labeenta adduunka oo dhan isaga timaada ee jaamacadaha Mareykanka ku tartanta dhalinyarada u badan iyagoo koorsaysan inay iyagu tacliinta bartaan oo ay ka mara dhaliyaan aad iyo aad baan u wadaanayaa in aan u imaado maanta oo ku habriyayna aad baan u faraxsanahay waa talabaad dhalinyaradaas waxaa kaloo uga mahadnaqayaa malaha odayaalo waa ku jiraan dee sida maxamuud afqasho kale waxaa ku hambalyayaa markii ay uu yimid cudurkan aafada la yidhaahdo covid gurmadkii ay galeen oo 3 beeloodba ay gurmad ka galeen mar aqoontoodii soo gudbiyeen oo waxay hogaaminayaan wasaaradda aqoon ahaan iyo adduunka research barba sameynayo ayay hadal iyo aqoon soo gudbinayeen marna waxay soo gudbinayeen qalab wixii ay karaan iyo tilmaan iyo halka loo doonayo mar saddexaadka waa ururka kaliya ee mushaharadoodii gurmad ka galay ee boqolkii kale ugu horeeyay ee mashruuca cid ay ku caawisa soo diray ee hay'adul bak soo dheeriyay taana waan uga mahadnaqayaa waxaan ka rajaynayaa inay sii adkeeyaan oo ay ururkana sii xoojiyaan halganka ay ugu jiraan inay dalkooda dhisaan iyo dadkooda waxtaraan ay aqoontooda ka faa'iideeyaan waqtiga adag ay siinayaan iyo miisaanka uu leeyahay iyo qiimaha uu leeyahay dadkiina uu garanayaa qarankiina uu idinka mahadnaqayaa uu idin og yahay idina ku sii dadaa oo hawsha ay noo sii balaariya taasaan ka idhi caafimaadka anigu aqoon uma lihi qof waliba waa dhakhtar oo lafiisa uu daweeyaa markuu xanuunsado qof waliba meel buu ka bilaabaa anigu waxaan rumaysanahay in caafimaadka dadkeenna marka guud ahaan loo eego inuu aad iyo aad muddo gaaban u korayo dad badan baa ka dayriya oo dhalinyaradii markay si guud u eegaan يعني اخترنا إيو عافمات كإيو إيو لنا أدوية استحاد أفريقيا ولا شيء لقى ديريو حتى ناس لقى ديريو أنا وما أركيه مدة النولشة أنت أنا وسويت شوين أركايا طلابة هرمرك وسميي وحنو أركا إنه أنت بقول سنة قوية يورو يا مريكم إنه كيف هذه السنة ويرجعوا تدخلنا أقوات كيف هذه ريا إنه الوقت بدل قويين وهالكي بقول سنة كنت سنة أيضا قاركوت سكريين inay inagu 2-3 sano ku jarayno markan ka soo eega halka maanta iyo intaasoo hospitaal oo maanta dadka lagu baarayo iyo intaasoo laboratory iyo intaasoo dhakhtar dibadda ka soo talinaysa dee muddada yari waa kuwa ay dalkan horumarin ku daynaa ay 200 ilaa 100 sano marka adeegta ay ku soo gaarayeen waxaan qabaa 30 sano soo socda in caafimaadkeenu uu noqon doono mid dhowr bas kaga filaado anigoo ku rajo weyn dadkeena aqoonta u leh iyo sida u korayaan dhakhaatiirteenu waayo imika waxaynu ku jirnaa halkii tayada caafimaadka la wanaajinayay bayskii kale waynu dhisay aqoontii qalabkii ka badh cusbitaaladii waxaanoo dhan waa dhan ways wada saxayaan deetana waxaan qabaa muddo yar 20 sano ku dhow ama kaba yar inaynu noqono meel caafimaadkeedu dhowr bays kaga filayay taana mahaddeeda waxaa leh dadka aqoonta caafimaadka soo bartay
oo kuwii inoogu waaweena inoogu horreeyey dee ay joogaan maanta aadna ka mid tahay cali qaadi weli nool yahay markaa anigu fishinkaasaan arkayaa oo aan ku rajo weyna dee markaa waxaa ilaahay mahadiya dhakhtar waloo dhakhaatiirtana ka midoo meel jooga iyo meesha lagu hayo mar haddii la helayo dawada maanta ugu dambaysa la qaadanayo oo laynoogu keenay dee dhakhaatiir rees aha waa mahadsantihin in ka badana waa laydinka rabaa waayo adduunkuu horumaray waa joogtaan aqoontaada waa u leedihin waxaan mar labaad aad ugu mahadnaqayaa da'da yar iyagu istaberay koob iyo sagaashankii waxa ka mida ka daba tegey ee dhakhaatiirta noqday ee iminka iyaga iyo xaasaskoodii dhakhtaraalka yimaadeen dhallinyaradana aad iyo aad baan u mahadnaqaya qolada waaweyn hore laysu yaqaano iyaga waa xil lagu lahaa qarankaa waxbaray isagaa diray markaa kuwaas iyagu abaalkaasa lagu lahaa laakiin dadkiina dhallinyarada soo dabarana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa intii ururkan ka qayb gashay ee bashiir good ka mid yahay waan u mahadnaqayaa dhammaan bahda waan u mahadnaqayaa aad iyo aad baa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullah